بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada walaalaha sharafta leh ee ku xiran janaalkeena caafimaadka. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo arin aad ugu badan bulshada. ama isku aragtay markii aad wax cunto in aad hurdo la dhacdo ama aad hurdo seexato, xitaa hurdada haddii aad ka soo kacday saacado ka hor. maxayse tahay sababta marka aad gurigaada ka bixin hurdadaadu ay isku xigxigto? toobigeena maanta kaas ayuu noqon doonaa hurdada cuntada kadib. in aad dareento xoogaa daal cuntada kadib, taasoo aad u baahan tahay in aad iskala bixiso ama aad hurdo, waa arrin dabiici ah. laakiin haddii aadan hurdo iska celin karin cunto walba dabadeed, waxaad u baahan tahay in aad dhakhtar la xiriirto. cuntada markaad cunto kadib, khaasatan cuntada markii ay tahay cunto culus, waxaa jirkaaga ku badato sokorta, kadibna jirku wuxuu soo daayaa hormoonka insuliinka, kaasoo sokorta hoos u dhiga. inta insuliintu ay shaqadaasi hayso, waxaa maskaxda ku badato maado loo yaqaano tryptophan. maadadan oo markii ay maskaxda gaarto jirka u bedesho laba walxood oo kala ah, serotonin iyo melatonin. labadan maado jirku way dejiyaan, hurdana way keenaan. sidaas ayuuna qofka ku dareemaa hurdo. hurdadu waxay badataa qofka markuu muddo gaajeysnaa sida xilliyada soonka, maxaa yeelay sokorta ayaa hooseysa markaad afuraysid. kadib cuntada aad cuntay waxaa loo bedelayaa tamar jirka si uu u isticmaalo. sokortii oo awalba yareed iyo midan oon diyaar noqon weli ayaa hormoonka insuliinta sokorta hoos u dhiga. wuxuu kaloo qofka dareemaa dhaxan iyo qarqaryo, taasoo ka tarjumaysa in sokortaadu ay hees u dhacday. jirkuna uu wada dadaal lagu soo kicinayo sokortii hoos u dhacday. qarqaryada iyo jareenta ay dareemaan dadka qaar waa falcelin jirkan lagu kululeynayo. way jiraan xanuuno loo yaqaano in ay keenaan dhaxanta iyo qarqaryada markastoo aad cunto cuntid, sida dhiigyarida, xanuunka thyroidka dhacsan, fitamiin yarida iyo hooyada uurka leh. haddii ay dhaxantaadu tahay mid joogto ah, fadlan la xiriir goob caafimaad si loo baaro waxa kugu sababay. haddii aadan rabin in aad hurdo amaba aad dhaxamooto cuntada kadib, ku dadaal in aadan cunin cunto ay ku badan tahay carbohydrateska iyo fatiska. carbohydrateska iyo fatiska cuntooyinka ay ku badan yihiin qofka waxay u keenaan hurdo. dhinaca kale, waxaad badsataa waxyaalaha borotiinka uu ku badan yahay iyo cagaarka. borotiinka waxyaalaha uu ku badan yahay iyo qudaarta cagaarka badso haddii aad ka ordayso ama aad ka cararayso in aad hurdo cuntada kadib. waxaa kaloo la arkaa dadka leh dheefshiid xumida. dadkaas waxay dareemaan dibiro, daaco iyo dhuuso badan. qofkana wuxuu dareemaa hurdo markuu cuntada cuno. waxaa kaloo hurdada u keeni kara qofka hadduu aad u daalanaa intuusan cuntada cunin ka hor. cuntadan qofka intuu cunin ka hor aad ayuu u daalanaa oo jirkiisa markii horeba wax uu u baahnaa hurdo. waxaa jirka tamartii yareed ee ku hartay loo weeciyaa xagga dheefshiidka, tan oo sababaysa qofka in la jiifiyo si uusan dhaqdhaqaaq u gelin. waana arrin Allah subxaanahu wa tacaala ugu talagalay. haddaba waxaan idinkula talinayaa dadka hurdada iska celin la marka ay cunaan cuntada.
cuntadooda in ay ku darsadaan dheecaanka tufaaxa ee loo yaqaano vinegar ama khalka si uu ugu caawiyo shiidista cuntada iyo isu dheelitirka sonkorta. Sidaasna hurdo weyn kuma qabanayso qofkaas oo hurdo weyn kuma dareemayo. Khalka tufaaxa aad ayuu ugu wanaagsan yahay dheefshiidka. Haddaba haddii aad iska celin karin mar walba hurdada, ku dadaal cuntadaada in aad ku darto khalka tufaaxa ama vinegarka. Hana iska badinin maxaa yeelay aashitadiisa aad ayay u badan tahay oo waxaa laga yaabaa xiidmaha in ay ku goyso. Waxaa la rabaa wax yar inaad isticmaashid amaba xataa kis yar oo biyo ay isaga dartid maadaama ay aashitadiisa iyo kuleylkiisa uu aad u badan yahay, balse dhinaca dheefshiidka aad ayuu ugu fiican yahay. Qofka waxaa fiican markii uu cuntada cuno in uusan isla daqiiqadii seexanin. Xitaa wax yar ha dhaqdhaqaaq yar ha sameeyo. Hawl badan haddii uu qaban xataa qofka dhaqdhaqaaq yar in uu sameeyo ayaa wanaagsan. Markaa kadib haddii uu seexanayo uu seexdo, balse isla daqiiqadii uu cuntada cunay qofka in firaashka intuu tago uu seexdo caafimaad ahaan ma wanaagsana. Dhinaca kale qofka markii uu cuntada cuni rabo ka hor waxaa wanaagsan in uu cabo biyaha, khaasatan biyaha cad. Waxay calooshaada u fududaynaysaa in uu dheefshiidkii fududaado. Dhinaca kale biyo hormarsa marka hore cuntada ka hor, cunto qiyaasan cun, calooshaada 3 qayb u qaybi. Qayb hawo, qayb biyo iyo qayb cunto. Ma aha 3 qaybba in aad cunto ka buuxiso. Waxay kuu keeni kartaa caafimaad darro aad ka soo kabsan weyso. Marka hore biyo cad isticmaal, 1 galaas ayaa kugu filan oo biyo cad. Kadib cuntadii oo qiyaasan cun. Marka intaas cunto kadibna biyo ka daba cab. Dheefshiidkaaga aad ayuu u wanaagsanaanayaa. Laakiin dadka cuntada cuno aan biyaha cabin cuntadana ku seexdo waxay halis ugu jiraan cudurro badan. Maxaa yeelay dufantii oo idil waa la keedinayaa. Dheefshiidkoodana dadkaas ma hagaagayo. Haddaba maanta wuxuu toobigeena ahaa dadka hurdada dareemo cuntada kadib. Waan filayaa in ay wax cun idinkaga iftiimeen ama aad wax ka fahanteen. Waa ku mahadsantihiin waqtigiina quruxda badan ee aad geliseen. Insha Allah noo shargalay videogan si ay asxaab badan u gaarto ugana faa'iideystaan. maxaa yeelay dad badan ayaa waxaa jira cuntada markay cunaa isla markiiba hurdaan. Ha ka faa'iideystaan oo wax ka ogaadaan arrintan. waad mahadsantihiin. haddaad nagu cusub tahay soo dhowow, haddaad hore noola joogtay soo dhowow. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.